السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها بركة سنو كسر دوادا مقال كان ملك استاد شوكتين بالله إذا حفظه وحن رجينا إن تكسر انتين في ماذا يدقنا شو مقال كان وحن ربنا أريني أنا وهذا الله إن شاء الله تعالى تعالى سنة إن إذا لو ذاكنه ولا لها خير كي بركة تعال ولا لها عاونت ولا لها ذكر تعال حتى هذا يسا يجو أرنتاسي مركز لقاها اللي أودين ولا لك لا أسيب بنية ولا لها خير نوع دونها النقطة من فعل من قول من قعنها النقطة جعل وحن ربنا مقال كان لو ذاقنه سدع وان كاتكو أركتين با وحوي أقون مركز مقشين أقون معناه هذا وفهميسان أقون مركز وحول الله إنك فاهين مايو أما اللي يدين شيء ميا أقون عاونتيد يا وحتركيد وناقي خيرك الدنيا يا آخرة كجرة وأتكود درك سنتين ما قاعد سوا إنك كفيلم با marka waxaan halka usoo fariisanay aniga MK walaalka inaynu idin la wadaagno inaad caawisaan walaalo masaakiina oo agoon oo iskool hadda agoon waxay cunaan hadda yani iyo badar guri ka damay ka waramay mayna wax ku saabsan laakiin taa wax ka muhiimsan baa ka waramayna aqoonti waa iskool ama goob waxbarasho oo agoon ay leedahay ama dadka masaakiinta agoonta أبوه دي والدك ويلو حنانا يو وحلقوا برو إسكول تعليم وين تعليم مركز مقشان نايدنا وتقرن إنسان ولا جي خير كوتشله مركز أو أقونتاس أينو عاوننا يو إسكول كذا يو برشادو وحلو بهني أينو إذا كجو رميتونا ولا لها ساتكو عاون إنسان إن شاء الله ملك استوجب تامنا هذا دي كان داوني يا داودين سيشر قليه ama like si dad badan ay u helaan insha Allah ta'ala ay u gaarto fariintan iyo codkan adiguna nala gaarsii sababta waxa tahay aad laftirkaada u fariin sidee intaanan waxyaalahaas ama waxa loo baahan yahay in la wadaagin in aan ku soo dhaweeyaan rabaa MK anshax iyo faahfaahin yar oo kooban insha Allah Cabdullaahi aad u mahadsan tahay dhamaantiin intii daawanaysan idinkana waa mahadsan tihiin Cabdullaahi waa dhameeyay balse waxaan ku darayaa xoogaha faahfaahina horta agoonta iyo muhiimadda ay leeyihiin iyo waxyaabaha maaragtay ay naga mudan yihiin qof kasta oo diinta bartay uu garan karaa marka intaas laga soo gudbo iskuulkan wuxuu ku yaalaa Soomaaliya magaalada Balad Xaawo ayuu ku yaalaa arday agoonaha dhigato mana jirto ay gobolka Gadaha mana jirto cid wax ka caawiso haday tahay waxbarashada noocyada kala duwan sida maxaan ku dhahay iskoolka lacagtiisa ardayda maxaan ku dhahay uniformka xiran lahaayeen dharkii buugaagti waxyaabahaas oo dhan ma haystaan cid ka caawiso kaliya waxay haystaan macallimiinta wax bari lahayd oo iyaga naftirkooda juhdi iyo dadaal badan intaas oo sano ku bixinaya aanay jirin cid fee ama iskuul lacagtiis ka bixinaysay iskoolkan waxa la yiraahdaa Daawo iskoolka Daawo hadii aad raadisid waad heli kartaa Daawo Primary School sidoo kale waxaa jirtay hadda ka hor iskool arday agoon ah ay dhigtaan oo ku yaalo magaalada Hargeysa oo wax u qabanay يعني أرديدا وحيابي أباهنايين كراس يو كتب يو أجابك سكولك أباهنايين أو قبتين ما شاء الله إذن كنا وانا لدلاشين ويحا أقبن كرنين وأقبناي أجري حسنات الله إذن كسي قفل بنا ويحا والله بحي وحاواي مالنت آخره أيو هلي دونا مركا أجابك اللو باهي هاي عبد الله بانو شيء دونه سيدو كلا وحان هنا مقال أرديدي أي نصو الدرين إذن كقعد سنيان قدها إسكولك إيغو كجرو إذن كقعد سنيان waxyaabaha ay u baahan yihiin marka waxa jirto lacag ina soo gaartay oo $2,000 ah $2,000 waxa soo dhiibtay dad walaalihiin oo idinkoo kala ah waxaan rabnaa inaan maaragtay aan iyagana aan bixino on barnaamijkan aan ugu talagalnay idinkana waxa idinka doonaya waxay tahay intaasi in la mid inaad ku soo darsataan ajri xasanaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinka siiyo bal wax loo baahan yahay iyo muuqaalkii hadda u galayna Cabdullaahi aad baa u mahadsan tahay iskoolkaas sida walaalka idin sheegay waxa weeye iskool agoon oo wax lagu barayo oo caawinteena u baahan kuna yaala Balad Xaawo ama gobolka Gedo degmada Balad Xaawo si fiican magaciisana aad maqasheen Daawo muhiimadda loo baahan yahay waxa weeye uniformka ama dharkii ay xiran lahaayeen oo goobta waxbarashada ku aadi lahaayeen kuraasay ku fariisan lahaayeen iyadana ku caawinaa rabna insha Allah buugaagti sidoo kale iyo qarashkii iskoolka meel dayacan hagaajin qurxin mid hadda bilaamay macalinka fiiskiisi yani mid hadda bilaamay iskoolkuna maana muddo soo jiray
arday badan ka qalin jabisay ها مركا هذا عاونتنا وباهي ولا لا بدن عاونية عاون دون إن شاء الله تعالى هذا مركا لعقته ولا لا بدن سودي بين إلى هذا لوكم بجالسة لوكم bahayna ما شاء الله مركا إلى لوكم وكله صدق كون وكله أفر كون وكله شم إلى إيميش جالسة أيوة إسكالي meeshana waan tegi doonaa oo waxaan u qabanayna iyo waxaas qarashkaas iyo wixii u baahan yihiin oo xataa dheeri ah si toos ah meesha u tegi doonaa oo idinku soo gudbin doonaa ها إن شاء الله مركا أنت الربا أرمهاس مركا ميل مساعدة يعاون لقوا رمينا تواكرنا إنسان وحلو باهي إسكول مركا لقوا رمي فسيرات بدن بهم باهنا مركا إنا عاوسان إن شاء الله تعالى يا رجالنا ولا لا بركة سميل كسا الجوكتان موقال ولا لها دليات عرورتا أقونتا جودها سكول كدحيس اللي وصل دوبينا وحير بل أنكوها كن إن شاء الله magacayga cabduul xaxabdi dadkii isku badaawa waxaa ka mid ahay ardayda agoonta waxyaabaha aan codsanaya aan u baahnahay waxaa kamid ah anagoo ardayda agoonta isku dhigto lacagta iskuulka sidoo kale dhaysaska uniformka iyo dhammaan waxyaabaha kale insha allah waxaan codsanaya dhammaan inta naga caawiyo waxaan ilaahay u baryaa qof kastoo qof ogaan caawiya inuu maxaheeda ilaahay darajad weyn gaarsiiyo waxay doonay intaasaan kusoo gudbinaya wanaagsantiin cid alla ciday ka qayb qaadato barnaamijka iskuulkan dhaawac waxaan ka mid ahay ardayda agoonta ee masaacideeyey waxaan halkan ka salaamaya dadka masaacideeyey iyo macalimiinta waxbartada waxaa sidoo kale halkan ugu duceynaya agoonta saacideeyey waxaan leeyahay agoonta yarto aad baa u mahadsantihiin muuqaalkaas inaad aragteen walaalaha caruurta ee laga soo duuba aad aragteen ida dhiirigelin doonto inaad caawisaan aan ku wada caawina dhammaanteen insha allah haddana lambarka oo maamulaha iskoolkaas toos aad u wacaysid oo aad la xiriiraysid waxaad awoodina ku daraysid ama xawaalad ha noqoto ama taleefonka ha noqoto ama meel ay noqoto isaga kala hadalha adiga hawsha asagaad kala hadlaysaa toos maamulaha iskoolkaas magaciisa insha allah macalin maxamed baa la yiraahdaa lambarkiisana halkaasuu ku qoran yahay intii annagana soo gaartayna waan sii gudbinay idinkana wixii aad haysaan oo aad heli kartaan lambarkaas ka waca macalinka kala xiriira iskoolka iyo macluumaadkiisa iyo wixii dheeri ood kaga baahan tihiin asaga kala hadla kadibna wixii aad u heli kartaan halkaas ugu dira waanan idiin duceynaynaa Aisha Cabdulla ilaahay idinkiisa ilaahay idinka abaalmariyo annagana naga abaalmariyo soo gudbinta laftirkeeda ajir iyo wanaag baan ka filaynaa idinkana sidoo kale insha allahu tacaala saasaan isku ognahay iyo inaynu caawino walaalaha agoonta si aynu daris ola noqono jannada dhexdeeda nabigeena calayhi salaatu wasalaam adduunkana barako uga helno insha allah iyo khayr saasaan isu ognahay ilaahay idinkiisa bilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu